بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أربعة أو قميص أي سو جليسو لبي لباتنك بيشا جولاي سنتك لوكن لباتني اللح أو كوباغن سديد بيشا سفر سنتك كن أفر الصبح حدي أيان لغو حقيقي إن إيران أي بيكستي عرمها هي أدى CIA سيردون كامريكان كأي بريغان دحي ترام أو بدلي luuqaddii adkayd ee uu ku hadli jiray ee la xiriirta marinka hormuuz Israa'iil oo caawa ku jirta heegan sare kadib markii Mareykanku uu ku wargeliyay in Iiraan duqeymo xooggan lagu qaadi doono dowladda Iiraan oo digniin u dirtay wadamada Yurub ee Mareykanka siinaya saldhigyo military oo dalkeeda uu kaga soo duulo kooxda RSF ee Suudaan oo ay soo food saartay dhibaato culus oo ku aadan ciidamada iyo saraakiisha goosanaysa ku dhawaad 300 oo askari oo fakaday ayaa maanta gaaray magaalada Khartoum kuna biiray ciidamada dawladda Israa'iil oo bilowday qorshe halis ah oo yaxaasiyad dadcuna lagu hareereynayo xabsiyada lagu hayo Falastiiniyiinta sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay haweeneyda ra'iisul wasaaraha ka ah waddanka Japan oo ka cabanaysa hurdo la'aan iyo shaqada ku badan sheeko la yaab leh ayaan idinkaga haynaa amuurtan dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan dalka Suudaan halkaasi oo saraakiisha iyo askarta ka goosanaysa RSF ay noqdeen tusbax afka laga furay arrintan ayaa waxa la sheegayaa dhabar jab xooggan inay ku tahay kooxdan la dagaalamaysa muddada 4 sano ku dhow ciidamada dawladda haddaba wararkii ugu dambeeyay wararka ka imaanaya dalka Suudaan ayaa sheegaya in koox ciidan ah oo ka goosatay ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF ay maanta gaareen magaalada caasimadda ee Khartoum kadib markii ay ka soo ambabaxeen gobolka Darfur sida wararku sheegayaan kooxda askarta oo ka kooban 280 ayaa la timid dhammaan hubkoodii iyo gaadiidkoodii military taasi oo qayb ka ah mawjad sii kordhaysa oo goosashada ciidamada ee bilihii la soo dhaafay haraysay safafka RSF warka waxay taasi ku darayaa in kooxdan ay qorsheynayso inay ku biirto ciidamada qaranka ee Suudaan iyadoo tilaabadan ay ku soo beegmayso dhaqaaqyo ay kooxo kale oo hubaysan uga baxayaan RSF kuna biirayaan militariga dawladda bishii hore taliya Daifullah Adam ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxay RSF gaar ahaan jiida gobolka Niilka Buluuga taasi oo noqotay kala jabkii ugu horeeyay ee laga diiwaan geliyay aagaas arbacadii taliya kale oo ka tirsan RSF ayaa raaligelin u jeediyay shacabka Suudaan isagoo ka cudur daartay xadgudubyadii dhacay isla markaasna ugu baaqay dagaalamayaasha in ay dib ugu laabtaan ciidanka qaranka taliyaha ayaa waxa uu sheegay in go'aankiisa uu salka ku hayo waxa uu ku tilmaamay midabta koor iyo maqnaanshaha ujeedda cad oo la xiriirta dagaalka bilihii la soo dhaafay waxaa sidoo kale RSF ka goostay taliyaal ay ka mid yihiin Faris al-Nur Ibrahim Beshara al-Hawira al-Nur Adam oo loo yaqaano al-Nur al-Quba Abu Aqleh Kakil iyo Ali Rizaq Safana kuwaasi oo dhammaantoodba ku biiray ama taageeray ciidamada dawladda dagaalka Suudaan oo galay sanadkiisii afraad ayaa sababay khasaare baaxad leh waxaana la sheegay in 10,000 oo qof ay ku dhinteen colaadda iyadoo qiyaasaha qaar ay sheegayaan in dhimashadu ay dhaaftay 200,000 oo qof halka malaayiin kale ay ku barakaceen gudaha iyo dibadda dalka sidoo kale qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan Darfur iyo Kordofan ayaa wajahaya macaluul baahsan waatahay warkaas intaas aynu kaga gudubno markan waxaynu eegaynaa dhanka Israa'iil halkaasi oo la sheegayo in la bilaabay hirgelinta qorshe uu hindisay wasiirka mayalka adag ee amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir waxaana uu la xiriiraa in xabsiyada ay ku jiraan maxaabiista Falastiiniyiinta lagu hareereeyo yaxaasiyo dadcuna aynu eegno
wararkii ugu dambeeyay warbaahinta Israa'iil arrintan ay ka qortay. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in maamulka xabsiyada uu bilaabay qodista godad loogu talagalay in yaxaasiya ku jiraan ama lagu hayo kuwaasi oo laga samaynayo hareeraha xabsiga Ketziyot ee koonfurta Israa'iil, halkaasi oo lagu hayo maxaabiis Falastiiniin ah oo Israa'iil ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqa Xamaas. warbixin uu daabacay wargeyska iyo daco taxranood ee ka soo baxa Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in godadkaasi dhirirkooda uu gaari doono 170 mitir. sarkaal ka tirsan maamulka xabsiga Ramat Naqab ayaa sheegay in godadka laga qodayo gudaha xabsiga isla markaasna aan dibadda laga arki karin. wuxuu xusay in aan weli la ogeyn in yaxaasiya dhaba lagu sii dayn doono halkaasi, laakiin diyaargarowga mashruuca uu bilowday. wasaaradda amniga qaranka Israa'iil ayaa xaqiijisay in shaqada mashruuca ay bilaabatay kadib markii wasiirka ilaalinta deegaanka Edith Selman ay ansixisay in halkaasi la geeyo yaxaasiyada Niil, inkastoo khubaro iyo hay'adaha deegaanku arrinkaasi ay si weyn uga soo horjeesteen. xafiiska wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir ayaa sheegay in tilabadaasi ay furtay wadadii mashruucan lagu hirgelin lahaa, waxaana xafiiska uu ku dhawaaqay in wejigii tijaabada ee xabsiga iyo xaasida ku hareeraysan yihiin oo si rasmi ah uga bilowday qaybo ka mid ah xabsiga Ketziyot. wararku waxaa intaasi ay ku darayaan in adeega xabsiyada Israa'iil uu diyaariyey qorshe lagu daryeelayo iyo xaasida laguna tababarayo ilaalada si loola tacaalo, iyadoo la sheegayo in mashruucan laga gol leeyahay in maxaabiistu aysan ka baxsan xabsiga, waxaana ku baxaysa miisaaniyad gaaraysa 21 milyan oo shekel ama lacagta Israa'iil ah oo u dhiganta 6 milyan iyo 300 oo kun oo dollar. xabsiga Ketziyot oo ku yaala saxaraha Naqab ayaa ah kan ugu weyn ee Israa'iil, waxaana lagu hayaa 10 kun oo maxaabiis Falastiiniyiin ah. hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee maxaabiista Falastiiniyiinta ayaa waxay sheegeen in tirada Falastiiniyiinta ku xiran xabsiyada Israa'iil ay si weyn u korortay tan iyo bilowgii dagaalka Gaza ee bishii Oktoobar 2023. mashruuca ayaa la sheegay in uu qayb ka yahay dadaalada lagu xoojinayo sida hadalka loo yiri ammaanka xabsiga, laguna adkaynayo ka hortagga baxsashada maxaabiista. warkaas intaas aynu kaga gudubno, waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe oo caawa cirka ku shareeran. Iiraan oo wacd ku martay in gobolku sila ololi doono. hadalkan wuxuu la xiriiraa kadib markii Trump uu sheegay Iiraan in si xun loo duqayn doono. waxaan kaloo idiin haynaa warbixin cusub oo soo baxday oo sheegaysa in Iiraan ay duqaysay xarumaha hay'adda CIA-da. wararka kale ee soo dhacay hadda waxaa ka mid ah dowladda Britain oo ku dhawaaqday diblomaasiyiinteeda inay kala baxayso waddanka Iiraan. xaaladdu cirka ayay caawa ku shareeran tahay. intaan u gudbin wararkaas iyo qodobada, Donald Trump galabtay uu ku goodiyey in Iiraan markab kasta oo ay weerarto in Maraykanku ay burburin doonaan warshadaha korontada mid ka mid ah ama mid ka mid ah shidaalka ama buundo. haddii markab kale la weeraro in sidoo kale la weerari doono goobahaas mid ka mid ah. macnaha xaaladda in cirka lagu sii daray ama cirka lagu sii laray ayay u muuqanaysaa. aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee amuurahan iyo waxa imika ka soo baxaya. Maraykanka ayaa la sheegay inuu Israa'iil ku wargeliyey inuu qorsheynayo inuu maalmaha soo socda sii xoojiyo duqeymaha uu ka wado Iiraan, oo ay ku jirto adeegsiga diyaaradaha culus ee wax duqeeya, kuwaasi oo markii ugu horreysay la adeegsan doono tan iyo markii uu bilowday ololahan military. waxaana la sheegayaa in arrintan ay baahisay shabakadda wararka ee Kan ee Israa'iil laga leeyahay. sida lagu sheegay warbixinta, dayuuradahaasi ayaa la filayaa in ay bartilmaameedsadaan xarunta nukleerka ee buurta Jabal al-Fars oo ku dhow magaalada Qom, taasi oo ku saraysan hanjabaadaha isdaba joogga ah ee ka imaanaya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ku aadan in la beegsan doono goobtaasi. iskaashi dhow oo dhanka amniga oo u dhexeeya Israa'iil iyo Maraykanka ayaa waxaa la sheegay in ujeedadiisu ay tahay in
Israa'iil loo diyaariyo suurtagalnimada in Iiraan ay uga jawaabto duqeymaha xooggan ee Maraykanka in iyana ay kordhiso weerarada iyo sawaariikhda ay ku qaadayso xarumaha Maraykanka iyo sidoo kale inay Israa'iil xitaa gantaal ay ku garaacdo. Warbaahinta kan ayaa sidoo kale waxay sheegtay in Israa'iil caawa ay ku jirto heegan heerkii ugu sarreeyay kadib markii Maraykanku xogtaasi uu la wadaagay dhanka Israa'iil. war kale oo caladan la xiriira weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa la xaqiijiyay Iiraan inay ku qaaday xarumo hay'adda sirdoonka Maraykanka ee CIA ay ku leedahay wadamada khaliijka. waxaana la sheegayaa in saraakiisha sirdoonka Maraykanku haatan ay baarayaan suurtagalnimada in Ruushku gacan uu ka geystay bixinta xogta bartilmaameedyada ama tiknoolajiyadda casriga ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida ay sheegeen dad xogogaal u ah sirdoonka Maraykanka. dadkan oo codsaday in magacooda aan saxaafadda laga sheegin sabab la xiriira arrimaha amniga qaranka ayaa waxay sheegeen in saraakiisha sirdoonka Maraykanku aysan weli gaarin gunaanad rasmi ah oo ku saabsan suurtagalnimada ku lug lahaanshaha Ruushka ee weerarada lagu qaaday xarumaha CIA-da. hase yeeshee waxay tilmaameen waxtarka iyo saxnaanta muuqata ee weerarada iyo sidoo kale taageerada farsamada ballaaran ee Ruushka uu siinayo Iiraan inay yihiin cadeymaha suurtagalka ah. wakaaladda wararka Reuters iyo warbaahinno kale ayaa horay waxay u sheegeen in saraakiisha Maraykanku ay qireen in Ruushku Iiraan uu siiyey xogta bartilmaameedyada iyo taageero kale oo ku saabsan weerarada ay ku qaaday bartilmaameedyada Maraykanka ee gobolka khaliijka guud ahaan, balse baaritaanada bulshada sirdoonka ee ku saabsan suurtagalnimada doorka Ruushka iyo taageerada weerarka lagu qaaday xarumaha CIA-da ayaan horay loo shaacin. Reuters ayaa waxay sheegaysaa in ugu yaraan 2 xarumood oo CIA-du ay leedahay la weeraray bishii March intii lagu jiray dagaalkii hore ee 40 maalmood socday. mid ka mid ah xarumahaasi ayaa waxay ahayd saldhigga CIA-da ee Sacuudiga kaas oo ku yaala safaaradda Maraykanka ee Riyadh, halka goob kale ay ku tiil bariga Ciraaq. qaar ka mid ah ilawareedyada ayaa waxay sheegeen in xarumo kale oo CIA-du leedahay sidoo kale la weeraray balse ma aysan bixin faahfaahin dheeraada. halka marka waxaan dul istaagno. horta Ruushku maanta waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov waxaana geeska uu geliyey wararka Maraykanka ka imaanaya ee ah Iiraan inuu siiyey macluumaadyo sirdoon iyo hub. dad badan oo arrimahan gobolka ka faalooda waxay leeyihiin arrintan waxay u muuqanaysaa in Maraykanku ay la yaaban yihiin awoodda Iiraan iyo saxnaanta hubka isticmaalayso. marka waxay leeyahay waxay doonayaan inay Iiraan yasaan oo yiraahdaan Iiraan awooddaas ma leh, laakiin hawshan waxaa ku jira Ruush. laakiin Iiraanta waxaa leeyahay iyagu waxay ku adkaysanayaan intaan iyo ka badan baan awoodinaa, laakiin waa la isla joogaa. xaaladdu markay cirkay ku shareeran tahay haatan waxaynu eegaynaa sirdoonka Maraykanka iyo sirdoonka Israa'iil kulamadii ugu dambeeyay ay yeesheen iyo waxa looga hadlay. madaxa hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad Roman Goffman ayaa 2 toddobaad ka hor waxaa la sheegay inuu u safray magaalada Washington si uu uga hadlo mas'uuliyadda Maraykanka dagaalka Iiraan. taasina waxay ahayd baaliri booqashadiisii ugu horeysay ee caasimadda Maraykanka uu ku tago tan iyo markii xilka uu la wareegay, sida ay daabacday shabakadda Axios iyadoo soo xiganaysa 2 ilawareed oo xogogaal ah. arrintan ayaa waxaa la sheegayaa in sidoo kale ay ku soo aadayso in kulamo ay dhex mareen Roman Goffman iyo agaasimaha hay'adda CIA-da John Ratcliffe iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee waddanka Maraykanka. telefishinka Kanaal 14 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa marar badan lagu eedeeyay in uu jabiyey xeerarka fabreebka militariga Israa'iil, isla markaasna waxa uu sheegay in wafdi Israa'iili ah oo muhiim ah 2 toddobaad ka hor ay booqdeen Maraykanka si loogu qanciyo madaxweyne Donald Trump inuu duqeeyo buurta Jabal al-Fars. Trump ayaa maalmihii la soo dhaafay wuxuu ku hanjabayay inuu duqeyn doono goobtaasi, iyadoo warar dhawaan soo baxana ay sheegayaan in Israa'iil ay Maraykanka u gudbisay xog sirdoon oo muujinaysa in Iiraan sanadkii hore halkaasi ay u wareejisay qalabka loo yaqaan
centrifugeska ee uraniumka lagu isticmaalo iyadoo sidoo kale la sheegayo in arrintan ay la xiriirto uraniumka Iran laakiin meeshaan doodba ka taagan khubaro badan oo Mareykan waxay leeyihiin Trump weli masirdoonka Israa'iil ay wax ka dhageysanaya waayo xogtan Israa'iil ba gudbisay laakiin sirdoonka Mareykanka ma ahan laakiin sababta uu isku casilay ama xilka looga qaaday madaxii hore ee Mossad waxay ahayd in lagu fashilmay hindisihii iyo qorshihii sidan oo kale u soo gudbiyay uu yiri haddii la dilo hogaamiyaha sare Iran waxay ku burburaysaa 48 saacadood laba mas'uul oo sarsare ayaa arrintan isku casilay mid waa John Kent waa madaxii xafiiska la dagaalanka argagixisada qofna waa Tulsi Gabbard oo ah gabadhii madaxda u ahayd xafiiska amniga qaranka labaduba shaqada waa ka tageen waayo waxay leeyihiin annaga sirdoonka Mareykanka xogtan ma u hayo laakiin Trump wuxuu ku qancay xogtii sirdoonka Israa'iil hadda iyadoo xaaladdu meel fiican marayso oo heshiis la saxiixay ayaa waxa la leeyahay waa sida qobarada Mareykanka ay sheegayso waxa Israa'iil ay leedahay buurta Jabal Fas waa in la duqeeyaa macnaheedu marka heshiiska meeshu ka baxay qobarada Mareykanka marka waxay leeyihiin Trump miyuusan aaminin sirdoonka Mareykanka miyuusan ka quusanayn Israa'iil inay ku riixayso dagaalka inuu sii socdo arrintu waa la yaaban yahay marka waynu arki doonaa wixii ku soo kordha waa hagaag imika waxaynu eegaynaa war culus oo dhanka Iran ka soo baxay taliyaha ciidanka cirka iyo ciidamada gaarka ah ee loogu talagalay in ay ka howlgalaan hawada qaybta ka ah ciidamada ilaalada kacanka islaamiga ee Iran sarreeye guuta Majid Musawi ayaa sheegay in weerar lagu qaado buundooyinka iyo xarumaha korontada ee Iran arrintaasi ay sababi doonto in korontadu ay ka go'do wadamada xulafada la ah Mareykanka iyo sidoo kale saldhigyada Mareykanka ciidanka badda ilaalada kacanka islaamiga ee Iran ayaa sidoo kale waxay sheegeen in Mareykanka Hormuz gebi ahaanba u noqon doono mid si buuxda gacantooda ugu jira iyagoo xusay in aan la aqbali doonin wax wada ah oo laga isticmaalo halkaasi dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Iran Abbas Araghchi ayaa mar kale ku celiyay in Iran ay ka jawaabi doonto weerar kasta oo lagu qaado dhulkeeda wuxuu yiri weerar kasta oo lagu qaado Iran oo ay ku jiraan kaabayaashayada wuxuu horseedi doonaa jawaab xooggan oo go'aan leh kuwa gacanta ka geysta weerarka caynkaasiya nooc kasta oo taageera ha bixiyeen sidoo kale waxa loo aqoonsan doonaa bartilmaameed sharciya isla wararkan gudoomiyaha baarlamaanka Iran ahna madaxa wadaxaajoodka Mohammed Baqir Qalibaf ayaa ka digay in gobolka oo dhan uu ololi doono haddii ay dhacdo in Mareykanka uu beegsado kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanka Iran wuxuu yiri gobolkan Iran haddaysan shidaal dhoofin cid kale oo dhoofin doonta ma jirto haddii aan la xaqiijin amnigeena ma jiri doona amniga kaabayaal kale oo muhiim ah amniga Mareykanka wuxuu ku xirnaan doonaa waa Mareykanka Hormuz in ciidamada Mareykanku ay iskaga baxaan aagagaasi waxaa sidoo kale uu sheegay in Mareykanka Hormuz uusan dib ugu laaban doonin xaaladii hore isla markaasna awoodda Iran ay u leedahay arrinka Mareykanka Hormuz ay tahay mid ay horeyba u xaqiijisay isla wararka colaadahan haddaynu ku sii soconno baarlamaanka wadanka Bulgaria ayaa maanta ansixiyay qorshe ogolaanaya in si ku meel gaar ah loo geeyo 8 dayuuradood oo shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka saldhig military oo Mareykanku uu ku leeyahay wadankaasi gaar ahaan kan lagu magacaabo Bismer inkastoo Iran ay ka digtay inta labadaasi ay ka dhigi doonto in xukuumadda Bulgaria qayb ay ka tahay dagaalka wasiirka gaashaandhigga wadanka Bulgaria Dimitrov Stoyanov ayaa sheegay in aan dhulka Bulgaria la keenin wax hub ah oo weerar ah isla markaasna qorshaha uusan ahayn in dalkan uu qayb ka noqdo howlgal military ansixinta qorshahan ayaa waxa uu helay taageerada 136 xildhibaan oo baarlamaanka ka tirsan waxaana ka soo horjeestay 13 xubnood dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa inay saldhigga keento 8 dayuuradood oo ah nooca
KC 135 iyo ilaa iyo 250 askari laga bilaabo 24 bishan. dhinaca kale afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iran Ismaaciil Bakhai ayaa cambaareeyay go'aanka Bulgaria isagoo sheegay in ogolaanshahaasi uu ka dhigi doono Bulgaria inay xulafo la noqotay gardarrada iyo xadgudubyada. xaaladdu marka cirkay ku shareeranta Trump wuxuu leeyahay Iran waa burburin doonaa. Iran waxay leedahay waa la arki doonaa. hadda waxaa soo dhacay war degdeg intaynu barnaamijka ku jirnay qarax ayaa waxaa laga maqlay magaalada la yiraahdo Sirik ee ku taal gobolka Hormuzgan ee waddanka Iran waana dhanka Hormuz. dhinaca kale waxaa la sheegayaa in ay caawa sare u kacday fuustada shidaalka qiimaha ay joogtay waxayna gaartay meeshii ugu sarreysay tan iyo 11 bishii June. waxaa la sheegayaa in fuustada qayrin shidaalka imika ay gaartay $94.07. waxaana warku intaa ku daraya in tani ay qayb ka tahay xaaladda oo sii xumaanaysa. isla wararkan xafiiska arrimaha dibadda ee waddanka Britain ayaa ku dhawaaqay in si ku meel gaar ah caawa looga saaray diblomaasiyiinta Ingiriiska ah safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Tehran. tani waxay ku soo aadaysaa kadib markii ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain Andy Burnham uu aqbalay in Mareykanku ay isticmaalaan saldhigyada military ee Britain iyadoo markaana Iran weerar halkaasi loogu qaadi karo. waxaana la sheegayaa in tani ay la mid tahay qorshihii uu horey u aqbalay ra'iisul wasaarihii hore Keir Starmer kaasi oo markaasi aqbalay qorshaha saldhigyada Mareykanka ee Britain ay ku isticmaali karaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. waa hagaag wararkaasna waa wararkii ugu dambeeyay. imika waxaynu eegaynaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka. aanaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. sheekadan waxay ku saabsan tahay waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo madaxda caalamka ama hogaamiyaashu way raaxaystaan, qasriyay degan yihiin, waa loo shaqaynayaa, gawaari raaxa leh bay wataan, waxay doonaan bay samaynayaan. laakiin ka waran xitaa qaarkood haddii hurdada ay ku yar tahayba. waxaa si gaar ah loo soo qaatay gabadha ra'iisul wasaaraha ka waddanka Japan oo ka cabanaysa hurdo la'aan. haddaba aynu eegna sheeko arrintan la xiriirta oo baraha bulshada aad u qabsatay. ra'iisul wasaaraha waddanka Japan Sania Takaichi ayaa waxay sheegtay in tan iyo markii xilka ay la wareegtay mararka qaar aysanba hurdo ledin habeenkii. mararka qaarkoodna waxay tiri ugu badnaa waxaa maseexdaaba 3 saacadood oo keliya. qoraal ay ku baahisay baraha bulshada ayaa waxay ku sheegtay in jadwalkeeda shaqo ee aadka u mashquulka badan uu sababay hurdo yari joogto ah. waxaa intaasi ay ku dartay in maalin fasaxa ay heshay fursad ay ku seexato 5 saacadood oo keliya. waxaana ay ku tilmaamtay nasasho weyn oo inta badan aan u suurto gelin. hadda la soco waa 5 saacadood. hadalkeeda ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa warbaahinta iyo baraha bulshada iyadoo dad badanna ka falceliyeen culayska iyo mas'uuliyadda saaran hogaamiyaha dalkaasi. inkastoo tani ay tahay waayo aragnimadeeda gaarka ah ma jirto caddayn madax badan oo xaqiijinaysa inay habeen kasta seexato saacadahaasi. laakiin khubarada caafimaadka waxay kula taliyeen dadka waaweyn inay seexdaan 7 ilaa 9 saacadood habeenkii si loo ilaaliyo caafimaadka jirka, maskaxda iyo awoodda shaqada. ma jiraan ilaa iyo hadda xogo dheeraada oo laga hayo hogaamiyaasha caalamku sida ay hurdada u kala helaan waqti. laakiin waxaa la leeyahay badanaa waxay seexdaan inta u dhaxaysa 5 saacadood ilaa 7 saacadood habeenkii. tusaale Barack Obama madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in isagoo habeenkii uu seexan jiray 6 saacadood oo qura. Joe Biden ayaa isna waxa uu sheegay 7 saacadood inuu sariirta saaran yahay. Trump isagu wuxuu ku andacoonayaa inuu seexdo habeenkii 4 saacadood ilaa 6 saacadood inkastoo aan la ogeyn sheegashadiis inay dhab tahay. Angela Merkel oo horey u soo noqotay ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaana waxay sheegtay in qiyaastii 6 saacadood habeenkii ay seexan jirtay. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qobanaha. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu